magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliland waxa habeenkii xalay lagu soo bandhigay buug lagu qoray Mujaahid Ibrahim Megaag Samatar oo kamid ah dadkii halganka dheer u soo galay Soomaaliland iyo sidoo kale ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogto buugan oo qoray Qoraaboba Yuusuf Ducaal ayaa koobsanaya taariikhdii dheereed oo uu soo galay halganka dheer Ibrahim Megaag Samatar ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda Soomaaliland meel kasta oo joogto buugan ay daabacday shirkadda daabacaad ee Sagalcad ayaa lagu soo bandhigay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa bandhiga buugan ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland sidoo kale aqoon-yahano barofesoro iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliland iyadoo badiba dadkani ka soo qayb galay ay ka hadleen taariikhda uu lahaa Mujaahid Ibrahim Megaag Samatar iyo doorka uu ku soo qaatay ummadda Soomaaliland ugu horreynna waxa ka hadlay madaxa suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha ee shirkadda daabacday buugan ee Sagalcad Saacad Cabdi Daahir iyo sidoo kale mid kamid ah ehelada Ibrahim Megaag Samatar oo isaguna goobta ku sugnaa Cabdi Ismaaciil Samatar iyagoo labaduba ka hadlay muhiimadda ay leedahay in dadka taariikhda ku lahaa Soomaaliland wax laga qoro in badan dadkeenu waxay daawadaan taariikh dadka noo shisheeyay ay leeyihiin waxaan markan diyaar u nahay inaanu jiilka dambe iyo jiilkii hore isku xidhno isla markaana ay dadka dambe ee dhalinyaradu wax badan ka ogaadaan taariikhdii dalka loo soo maray iyo marxaladii kala duwanaa ee waddanku soo maray reer Samatar qoyskaasi inaan mahad ka celiyo iyo guud ahaan beesha Ibrahim ka soo jeedaba ilaahay baa mahad leh haduu ilaahay baa leh aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa qoraaga buuga Cabdi Yuusuf Ducaale Boobe waxa kaloo ugu mahadnaqaynaa halkan shirkadda Sagalcad oo iyaduna bariyahan dambe aad moodo inay taariikhda ay min taariikhdii Soomaaliland ay qayb balaaran ka qaadanayso oo ay buugaga sidaas u qorayso waana badacada inoogu horeysay ee dalka ka samaysantay waliba waxay u samaysmayaan oo ay u qorbayaan oo aan la dhaadaynin ku hadhow tala dhaadi doona sidoo kale waxa goobta lagu soo bandhigay muuqaalo ka hadlaya taariikhdii dheeraa uu Ibrahim Megaag Samatar u lahaa ummadda Soomaaliland u soo أيها كون إنسان أقوصي ووحش الإنسان هذا كعبايا التي ما نحن يقدس الأولى dhinaca kalena waxaa goobta ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Professor Cali Khaliif Kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Injineer Faysal Cali Waraabe iyo safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Itoobiya Cali Shombe iyo mas'uuliyiin kale oo tiro badan dhammaantoodna ku dheeraaday taariikhda uu lahaa Ibrahim Megaag Samatar iyo doorka uu ka soo galay taariikhda Soomaaliland Ibrahim Megaag Samatar ilaahu naxariiste والله مدحويني إلى أيام لو قريبوها أو حقيقة هو قريبي وتعرف تيسا أبدأ رجعوا أخرى كعاك كعيبوا أو عام ولا شيء رجل بالاش وسلي سواء أركب جيبوها أي تبعوها رجل قولي سوى الصعبان هيك تجي دولتي aan isla bilownay Ibrahim aad u maskax fiican iskuulada class buu igu horeeyay Xamuud baa uu isagoo form 2 secondary school ka ah yaan aniguna form 1 noqday ilaa uu dhameysanay 61kiina sheekh baan wada joognay Mareykan classkii ugu horeeyay sheekh ka baxay iyo ahaa tagay nin aad u maskax badan leh dadaal badan leh iyo ahaa sidoo Dr. Ismaan Sheikh Ahmed sheegayna digrigiisa hore iyo masterskiisa Yale buu ka qaatay PhD-giisana University of California Riverside iyo ka qaatay isla markiiba wadanku ku soo noqday markaa hore intuusan dib Mareykan ugu noqon wasaaradda maaliyaddu ka noqday shaqaalihii 65tiiba wasaaraddaas uu ka shaqeynayay muddo ka bacdina wuxuu ban noqday director buu ka noqday planning wasaaradda gudaheeda wasiir maaliyadeed buu noqday
the interesting thing intii taariikhda Soomaalida ahayd anigu aan warkeeda hayo waa wasiirkii qura ee wasaaradda intuu joogay surplus uu soo baxay. Surplus waa budgetkii markaa dawladda Soomaalidu ay lahayd inta kale oo dhan waa la kaalmeyn jiray oo budgetary contribution dawladda Talyaaniga iyo Ingiriiska iyo waxaan u maleynayaa Sacuudiga iyaba bixin jiray deficitka inta ka dhinaata. ugu dambeynna waxaa goobta ka hadlay qoraabooba Yuusuf Ducaale oo ka hadlay taariikhda Ibraahim Meegaag Samatar ku lahaa ummadda Soomaaliland iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. qoraabooba Yuusuf Ducaale oo shakhsiga isagu qoray buuggan iyo taariikhda koobsanaya Ibraahim Meegaag Samatar. ninkoo buugga intiina badani heli doontaan wuxuu ka kooban yahay qaababka loo qoro buugaagta. waxa ugu horeeya had iyo goor waxaan dedicationka la yidhaha ama hibaynta. buugga waxaan u hibaynay qoyskii Ibraahim Meegaag Samatar, Marwa Aamina iyo carruurtiisii ayaan u hibaynay marka koowaad. mar labaadka buugga waxaan u hibaynay ardayda Soomaalida ah meel kastoo ay joogaanba. waxaan ugu talagalay inay daraasad cilmiga ku sameeyaan, inay arkaan wixii laga qoray qayb ka mid ah ummadda Soomaaliyeed oo soo martay raxaraadkii halgankii hubaysnaa, nabadeyntii iyo dib u dhiskii iyo geedi socodka dimuqraadiyadeed. marka intaa ka tago waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay baan u mahadnaqayaa suuragelintii buugga. Axmed Khalid Farax, Ariel TV, Hargeysa.